السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan hadba ka joogtid daawade waxa macquul ah inaad in badan wax ka maqashay nidaamyada sirdoonka ee gumeystaha Israa'iil ee sheekooyinka jawaasiistiisa. Haddaba muuqaalkanan maanta waxaan kula wadaagi doonaa sheekada mid ka mid ahayd basaasayaashii u shaqayn jirtay hay'adda sirdoonka ee gumeystaha Israa'iil. Gabadhan oo ahayd gabadh Carabiyeed oo ku bedelatay dalkeedii, diinteedii iyo dadkeediiba inay ka mid noqoto hay'adda sirdoonnimada. Haddaba muuqaalkanan waxaan kaga hadli doonaa sababaha ku kalifay gabadhan magaceedu ahaa ama lagu magacaabi jiray المفتي أما سيدا لوغا يقاني ميستها إسرائيل آني موشي براد. دابا مغالكنا نحن كوغا هادلي دونا سببها كو كليفي قبردان يوم السير كيدي هالكي وكدن بيبا رايقو عبد المجيد waxaan ku soo gudbiyaa kanaalka dooyin xaqiiqa iyo waadic faa'iido leh. Fadlan dad nagu cusubtaa kanaalka ku soo biro subscribe ta taabo lana wadaag asxaabtaada haddii ku cajibay muuqaalkani mahadsan. Aynu guda galno muuqaalkana maanta. waxay Aamina Daawud al-Mufti ay dhalatay sanadku markuu ahaa 1939 waxayna ku dhalatay dalkaas Urdun. waxay ka dhalatay qoys ladan ama hodan ah oo haystay hanti badan. waxa uu ahaa aabaheed mid ka mid ah ganacsadayaasha ugu waaweyn dalkaas Urdun xilligaas. hooyada ama islaamta dhashayna Aamina al-Mufti waxay ahayd mid ku hadli jirtay tiraba 4 luuqadood. waxay ku jirtay gabadhan Aamina al-Mufti lagu magacaabo xagga caruurta tira ahaan ta u yar ama guri dambaysta xaafadda. waxayna waxbarashadeeda dugsiga hoose ilaa sare ku soo qaadatay dalka Urdun ilaa ay u socdaashay dalka Australia gaar ahaan magaaladiisa Vienna sanadku markuu ahaa 1957 si ay u soo dhamaystirato hayaankeedii waxbarasho gaar ahaan dhanka jaamacadda. intii ay ku guda jirtayna jaamacadda waxa ay iska bar gabadh amaba inan ka agdhaweyd guriga ay deganeed Aamina al-Mufti. isbarasho iyo isdhexgal ballaaran kadib waxay bartay gabadhii Aamina al-Mufti nooc kasta oo xaaraan ah haddii noqoto khamriga, sigaarka, cabidda, noocyo badan oo maankaaga daawada ku soo dhacaya. sanado dhowr ah kadib waxay Aamina al-Mufti sanadku markuu ahaa 1961 ay soo dhamaysay heerkeedii koowaad ee jaamacadda ee takhasuska dhanka medicine-ka waxayna dib ugu soo laabatay dalkeedii Urdun. xoogaa markii ay joogteen Aamina al-Mufti dalka Urdun waxay la weyda dhaqankii ama habnololeedkii dalkaas Urdun waxayna mar labaad socdaashay magaalada Vienna iyadoo ku qanacsan waalidiinteed in ay u tagayso magaalada si ay soo dhamaystirato heerka masterka ama heerka labaad ee jaamacadda. markan iyadoo ku takhasusaysay ama takhasuska gaarka oo si ahaa cilmu nafsiga. markii ay tagtayna magaalada Vienna waxay ku biirtay mid ka mid ah jaamacadihii magaalada waxayna bilowday iyadoo ku guda jirta Aamina jaamacadda inay shaqaysato wayna heshay shaqadii oo shaqaysatay. waxayna Aamina al-Mufti ay goobtii shaqada isku barteen gabadh amaba inan lagu magacaabi jiray Sarah Brad oo asal ahaan u dhalatay amaba ka soo jeeday qoys Yuhuudi ah. isbarasho iyo isdhexgal dheer kadib waxay Sarah Brad ku casuumtay Aamina al-Mufti waana ay aqbashay Aamina al-Mufti casuumaadii. intaas kadib maalintii ay ballantu ahayd ayaa ay Aamina timi gurigii waxaana soo dhaweysay gabadha saaxiibada ahaayeen Sarah ama Sarah Brad. intii lagu guda jirayna casuumadda Aamina al-Mufti waxa cajab geliyay in ay walaalo ahaayeen gabadhan Sarah Brad ninkaas oo lagu magacaabi jiray Moshe Brad oo isna Yuhuudi ahaa. waxaana uu ahaa ninkani askari duuliye ah oo darajadiisu ahayd kabtan una shaqayn jiray dalkaas Australia. waana ay isbarteen Aamina iyo ninka askariga ah Yuhuudiga ahaa. halkaana waxaa ka bilaabantay xidhiidh jacayl ah oo dhexmaray askarigii Yuhuudiga ahaa ee Moshe Brad iyo Aamina al-Mufti. waxaana uu socday xidhiidhkaasi muddo dhan 5 sano. waxayna Aamina seegtay amaba ay halkaas ku weyday shahaadadii masterka ama heerka labaad ee jaamacadda. waxayna wargelisay Aamina al-Mufti arrinkii ahaa waayitaankeedii jaamacadda ninkii Yuhuudiga ah ee ay u qaaday jacaylkan dhalaanta ee Moshe Brad ee Yuhuudiga ah. markii uu maqlayna ninkani Moshe Brad waxa uu gudagalay inuu u soo saaro Aamina al-Mufti shahaado bug amaba been ah oo sheegaysa amaba tilmaamaysa in ay ka soo baxday jaamacadda dhanka takhasuska cilmi nafsiga. intaas kadib markii uu sanadku 1966 ku ekaa sanadkii ay dib ugu laabanaysa amaba jaamacadda gabagabeynaysa Aamina al-Mufti waxay dib ugu laabatay Aamina al-Mufti dalka Urdun iyadoo sidatay shahaadadeedii bugta ahayd amaba beenta ahayd. waxayna markan ay timi Aamina al-Mufti dalka Urdun waxayna u soo bandhigay waxayna ay waalidiinteed u soo bandhigeen guur amaba inay guursanayso in ay ilmaadeer ahaayeen. laakiin Aamina al-Mufti way ka soo horjeesatay guurka oo diiday. waxayna mar saddexaad dib ugu laabatay magaalada Vienna ee dalkaas Australia. waxayna la sheegaa sababta ay ugu tagtay inay ahayd markan in shahaadada ay sidatay Aamina al-Mufti ee been abuur
abuurka ahayd ayaa wax ka sheekeeya la yiraahdaa wasaaradda caafimaadka ee dalkaas Urdun waxayna ka cabsatay Aamina inay kashifto wasaaraddu shahaadadeeda sidaas awgeedna waxay u soo laabatay Aamina al-Mufti Vienna almuhim arrinku si kastaba ha ahaadee markii ay Aamina joogtay magaaladii Malmoon ayaa ninkii ay isjeclaayeen ee Yahuudiga ahaa ee Moshe Brad waxa uu soo bandhigay guur laakiin guurkaas oo ninkaas amaba ninka Yahuudiga uu ku xidhay hal shardi kadib shardigaas oo ahaa inay Aamina al-Mufti ka soo baxdo diinteedii suubanayd ee Islaamka soona gasho diintiisii Yahuudiyadda ahayd ee uu haystay isagu Aamina al-Mufti kamaba ay labalabay shardigiisii waxay hore ka aqbashay Aamina al-Mufti kamaba ay labalabayn waxay hore ka aqbashay shardigiisii waxayna qaadatay Yahuudiyaddii ama diintii Yahuudiyadda kadibna waa isguursadeen ninkii lagu magacaabi jiray Moshe Brad halkaasna waxay ku bedeshay magaceedii Aamina Daawud al-Mufti una bedeshay Ani Moshe Brad maalmo yar kadibna Aamina al-Mufti amaba Ani Moshe Brad waxay cabsi badan ka qaaday ehelkeeda oo ay ugala baqatay nafteeda inay ugu yimaadaan halkan Vienna amaba magaalada ay deganeed oo ay dilaan taa waxaa la sheegaa markay habeenkii seexanayso inay barkinta hoosteeda gashan jirtay baaskoolad daraaddeed intaas kadib sanadkii markuu ahaa 972 ayaa subaxyada ka mid ah ayaa Ani Moshe amaba Aamina al-Mufti iyadoo akhrinaysa mid ka mid ah jaraa'idada ka soo baxa magaaladii ay deganeed ayaa waxay isheedu qabteen maqaal guda yaalay jaraa'id maqaalkan ayaa u dhignaa sida tan in Israa'iil ay dalbanayso duuliyayaasha diyaaradeed ee u dhashay dalkeeda duuliyayaashana uga qayb qaadanaya dagaalada kala dhexeeya dalalka Carabta waxaana ay siinayeen amaba ugu abaalgudayeen dadkaas dalkeeda u dhashay ee duuliyayaasha hoy bilaash ah iyo mushahar bille ah iyo waliba baasaboorkooda markii ay Aamina dhamaysay maqaalkii ayaa waxay odaygii Moshe Brad ku cadaadisay inay degaan oo ay tagaan Israa'iil sababtoo ah waxa ay naawilaysay ama rajaynaysay oo ogsoonay inaysan ehelkeedu halka ugu iman karin amaba ay adag tahay soo gelitaanka ehelkeedu ay soo galeen Israa'iil ugu horreyntii waa uu ka diiday Moshe Brad Aamina amaba Ani inay tagaan Israa'iil laakiin ugu dambeyntii way ku qancisay waxay u goosteen inay tagaan gumeystigii Israa'iil markii ay tageen waxay gumeystigii Israa'iil soo dhaweeyay Aamina al-Mufti amaba Ani Moshe Brad si aan inaba caadi ahayn oo la yaab leh sababtoo ah waxay ogsoonaayeen inay tahay qaayimadii diinteedii bedeshay carabiyad ah adigu waxay ogsoonaayeen inay qurun oo dhan iskugu biireen gabadhan intaas kadib waxay ku sameeyeen baadhitaano badan waxayna ogaadeen amaba ogsoonaadeen gumeystigii Israa'iil inay gabadhan amaba Aamina al-Mufti ay tahay xaaraan nijaas lagu dallacay oo nacayb aan la soo koobi karin u haysa carabta oo dhan waxayna dallacsiiyeen darajadii ninkeeda Ani Moshe Brad amaba Aamina al-Mufti waxaana uu sidaas kaga mid noqday odageedii mid ka mid ah duuliyayaashii dhanka cirka ee diyaaradaha dagaalka ee gumeystaha Israa'iil markii uu sanadku 1973 ayaa ninkii lagu magacaabi jiray Moshe Brad waxay ahayd duulimaadkiisii dagaal ee ugu horreeyay ee uu ka qayb galo waxay ciidamada dalka Suuriya difaac ku dhufteen diyaaradii bayloodka ka ahaa Moshe Brad sidaasna uu ku dhintay markii ay maqasheen Aamina amaba Ani Moshe Brad arrinka odaygeeda in la weysan yahay odaygeedii diyaaradiisii waxay la kulantay oo ay gashay koomo amaba ay miirdoolantay waxaana loola cararay dhakhtarka Aamina al-Mufti waxayna ku jirtay koomadaas muddo bil iyo badh ah markay dib ugu soo laabateen xaaladii koomada ahayd waxay ka wargelisay gumeystigii Israa'iil inaanay ku qanacsanayn waayitaanka odaygeeda oo iyadu iskeedu soo baadi doonanayso waxayna dib ugu soo laabatay magaalada Vienna uga soo qaadatay baasaboorkeedii Urduniga ahaa maadaama aan baasaboorka Israa'iil ku geli karin wadamada Carabta waxayna ka soo qaadatay guriga ay deganeed baasaboorkeedii Urduniga ahaa waxayna u jihaysatay dhankaas iyo Beirut dalka Lubnaan Beirutna waxay uga sii gudubtay Suuriya gaar ahaan Dimashq ama magaalada Dimashq si ay bal u hesho raad u tilmaamaya noolaanshaha amaba inuu nool yahay odaygeedii waxayna amaba Aamina al-Mufti soo yaqiinsatay dhimashada odaygeedii waxayna u jihaysatay mar kale dalka Austria gaar ahaan Vienna ama magaaladiisa Vienna halkaasna waxay gumeystaa Israa'iil uga faa'iideystay inay noqoto gabadhani amaba Aamina al-Mufti sirdoon uga soo waramo dhulalka Carabta gaar ahaan Lubnaan magaaladiisa Beirut oo ay ku sugnaayeen kooxiiska caabinta ee dalka Falastiin waxayna aqbashay Aamina amaba Ani Moshe inay ka mid noqoto sirdoon sababtoo ah cadaawadii baanad ay u qabtay Carabta oo ay weliba ugu soo biirtay dilkii odaygeeda Moshe Brad waxayna tababar soconayay muddo ku qaadatay magaalada Vienna waxayna ku baratay Aamina al-Mufti amaba Ani Moshe Brad nooc kasta oo looga baahan yahay sirdoonka howlgalkii ugu horreeyayna waxa loo diray Lubnaan magaalada Beirut waxaana ay u tagtay Beirut oo aynu hore u soo sheegnay inay ku sugnaayeen halkaas kooxiiska caabinta ee Falastiiniyiinta kuwaasoo dagaal adag kula jiray gumeystaha Israa'iil waxaana ay soo dhex gashay Aamina al-Mufti kooxii Falastiiniyiinta iyadoo iska dhigaysa dhakhtarad ku mutawaadicaysa
muhiimadeeda dhakhtarnimo waxayna halkaas xoga aad uga badan u gudbin jirtay gumaystaha Israa'iil halkaasna ay ku fashilmi jireen muhiimad amaba howlgallo badan oo ay qaadi lahaayeen kooxaha iska caabinta Falastiiniyiintu iyagoo aan garanayn sababta ka dambeysay ay u fashilmayaan waxayna ka dalbadeen ciidanka sirdoonka ee gumaystaha Israa'iil ee Mossad Amina al-Mufti amaba aan Moshe Brad inay markan qaado tallaabo aad muhiim ugu ahayd Israa'iil waxayna u direen inay soo basaasto markan nin lagu magacaabi jiray Cali Xasan Salaama oo ahaa madaxii sirdoonka ee kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta waxayna Amina al-Mufti amaba aan Moshe loo diray muhiimadda amaba howlgalka inay soo basaasto meesha ay joogaan gabadhii uu qabay Cali Xasan Salaama iyo caruurtiisaba si ay gumaystaha Israa'iil ee uu dagaalka kula jiro u afduubaan amaba ay u dilaan si uu u joojiyo waxaana ay Amina guda gashay basaasidda Cali Xasan Salaama iyadoo ay ugu dambeyntii ay isbarteen Cali Xasan Salaama iyo Amina al-Mufti amaba aan Moshe Brad iyadoo iska dhigaysa dhakhtaradii aynu hore u soo xusnay laakiinse waxay maalin ka mid ah maalmihii weydiisay Cali Xasan Salaama Amina al-Mufti bal ka waran xaaskaagii caruurtaadiiba iyadoo ka rabta bal inay wax xog ah ka ogaato balse waxa uu ahaa ninkan Cali Xasan Salaama nin aad u fiiro dheer amaba aad maskax badan waxaana ugu jawaabay sidee ku ogaatay in aan caruur iyo xaasba leeyahay sababtoo ah ma uu ahayn ninkani gabadha mid la soo hadal qaadi jiray caruurtiisa iyo xaaskiisaba waxaana uu ku abuurantay Cali Xasan Salaama shaki ka dhana gabadhan waxaana uu daba dhigay Amina amaba aan Moshe dad 24 saacadood beendhaha ku hayay ugu dambeyntiina waa la ogaaday inay ka mid tahay dadka sirdoonka ama basaasiinta ka mid ah ee dalkaas Israa'iil ugu dambeyntiina waana la qabtay Amina iyadoo saaran waxaana isku dayday bal inay baxsato balse markii ay ogaatay in ay ku jirto meel aan laga baxsan karin ayaa waxay isku dayday inay cunto amaba liqdo sunta cyanide-ka yiraahdo balse ma ay suurtagelin waxaana la geeyay hog oo lagu xidhay balse ay wax xog ah oo Israa'iil ku saabsan ay u sheegto laakiin heerka ay gaadhay sirdoonnimada gabadhan amaba Amina al-Mufti wax xog ah ma ay bixin waxaana uu Cali Xasan Salaama wargeliyay gumaystiga Israa'iil inuu haysto Amina al-Mufti amaba aan Moshe oo ahayd mid ka mid ah basaasidoodii Israa'iil waxaana uu wargeliyay inay ku bedeshaan gabadhan laba nin oo muhiim u ahaa kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta markii uu gaadhay warkii gumaystiga Israa'iil waxay ku soo jawaabtay in aysan bixinayn amaba ku bedelanayn oo aan agtooda wax qiimo ah amaba muhiim ah kala ahayn oo ay dilaanba hadday rabaan bal eeg daawada heerka raqiisnimo ay gabadha nafteediisa geysay intii ay Amina al-Mufti ku jirtayna godka ee ay ku xidhnayd xitaa waxay ku qancisay gaadhkii amaba mid ka mid ah ilaaladii ilaalinayay in ay isla baxsadaan oo uu sii daayo waana uu waafaqay ninkii laakiinse intii aanu sii deyn ayaa la ogaaday laguna filiyay dil toogasho ah ninkii ilaalada uu ahaa sidaas awgeedna uu ku dhicisoobay howlgalkaasi ay ku rabtay Amina al-Mufti in lagu sii daayo amaba ay ku baxsato ugu dambeyntii waxa uu Cali Xasan Salaama wargeliyay howlgalkan isku bedelashada gumaystaha Israa'iil inay ka hordilayaan iyadoo ay saxaafadda oo dhammi live amaba si toos ah u baahinayso gabadhan dilkeeda Amina al-Mufti amaba aan Moshe warkaas markii uu soo gaadhay gumaystaha Israa'iil waxa uu ku abuuray cabsi waxaana uu ka baqay in haddii uu ku dhaqaaqo in ay cabsin ama baqdin gelinayso dhammaan sirdoonnadiisa kale ee ku guda jira dhammaan wadamada Carabta waxayna aqbaleen inay kala bedeshaan labada dhinacba dadkii ay u kala baahnaayeen waxaana la isku qaatay amaba la isku waafaqay kala bedelashadu ay ka dhacdo magaalada Qubrus ee dalkaas Turkiga waxaana dhex u ahaa Laanqeyrta amaba Bisha Cas halkaasna waxay ku soo furteen laba nin oo muhiim ah kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiintu waxaana lagu bedeshay gabadhii khaayintay ehelkeedii diinteedii iyo dalkeediiba lamana garanayo waxaana ay u gacan gashay Amina al-Mufti gumaystaha Israa'iil gabadhan oo ahayd mid khaayintay ehelkeedii diinteedii iyo dalkeediiba ayaan ilaa maanta la garanayn masiirkii wixii u dambeeyayba gabadhan Amina al-Mufti amaba aan Moshe Brad ugu dambeyntiina muuqaalkeenan maanta halkaas aynu kusoo gabagabeynayna mahadsanidin dhammaantiiba waxaynu ku dhaafaya intaan ku kulmayna muuqaalka xiga salaamaad muuqaalkana like saar haddii uu ka cajabiyo lana wadaag asxaabtaada mahadsanid